عاشقيدا وعني قابكيدا لو دقي تمحيدا إركيو سيدا في أرحبي الله وبركاته كل انتي وعنا وناكسن marka la iifiido cusub channelka nagala socotaan waxaba family anigu oo museen soo dhawaada maalin wanaagsan habeen wanaagsan subax wanaagsan duhur wanaagsan casr wanaagsan kullu shay wanaagsan asxaabtiga cusub soo dhawaada asxaabta la joogso kala soo dhawaada dhameetii bisoo dhawaada dhameetii waad jeclahay insha Allah waa marka la qisada kor falan channelka ta cusub koran insha Allah share kom saaxiibada labada gaada ma santahay subscribe ku zareno like reno share kare dhameetii ma santii dhameetii waad jeclahay إن شاء الله مركز ميل كسر ودعي قف كسر مسلم ولا حنا وصلنا له عفمات تام نصية رنتي ما أنتوا حنا وذا قصة أد ويا بدن وأد إن بدن كقصلي دانتان سو مركز إن شاء الله نبلا بقصة بحكي عدل كهولن هلا وغير هولن نصر ويا نحن كنا عد الإسلام لغو مقع سوري إسلام ما حد قف وين أما أيهو لغو مقع عابتشيني تقولسون وتضبطني سيدة جرأة waxay ahaydeen oo islaam naagu dhalatay dalka Holland waliba waxay deganeedeen galbeedka caasimada Amsterdam galbeedka Amsterdam deganeed ayadii ciyarkeedii odageedu wuxuu dhintay ayadoo 65 sano jirto ilmaheedina ayadoo soo korsatay waxa dhacday in gabadheedii ilmaheedii gabadha ugu yareed guursatay nin ka soo jeeda dalka Holland waliba ninkii ay muddo isjeclaayeen isguursadeen ninkii wuxuu bilaabay gabadha inuu dilo oo garaaco ilaa ay maxay nabarrada xilligaas uu geystay maxaytood kaga soo carartay ee ka divorce dalbatay saasan ay ku kala tageen wiilkii iyo gabadhii muddo kadib wiilkii iyo gabadhii markay kala tageen gabadhii yani ayid ee dhashay iyo ninkii markay kala tageen wuxuu bilaabay inuu maalintii dambe sida la sheegay gabadh shil gaari ku dhimatay laakiin ayaydu waxay tiri gabadhayda ma aysan ku dhiman shilka gaari laakiin waa la dilay isla markiiba boolis way waayeen cadeymo ah ninkaas inuu gabadha dilay saasana ninka sheekadiisa lagu soo gabagabay ayadii markii waxay bilowday in gabadheedii u aarto waliba ay sameysay dabagal dheer ee ninka ku sameyso isku dayday xitaa inay lacag fara badan ku bixiso ninkaas ugu aargudi lahayd gabadheeda asigana uu dhiman lahaa waxay bilowdeen inay maxaytood kireysato gabar ka soo jeeda maxaytood qaarada Aasiya gabadhaasna ay lacag fara badan siisay ay ninkaas soo xirigelay ninkii la soo xirigelin gabadh jacayl fara badan ay ku abuurtay way balamisay muddo dheer isla wada socdeen ilaa 2 sano iyo bar markii ka soo wareegtay geeridii gabadhii yani ayadii dhashay Janet gabadheedii markii 2 sano iyo bar ka soo wareegtay geerideedii ba gabadhii yani Aasiyaanka ay u dirsatay iyo ninkii waxay isku soo bandhigteen guur hadda way guurka markay isku soo bandhigteen ayadii waa la shirgaray wixii ninkii uu jeclaaday soo marka guur uu soo bandhigtay ayadii marka waxay bilowday ninkii inay dhahdo noo soo shirqool guriga noo keen waliba guriga gabadha Aasiyaanka diganta noo soo shirqaan ninka waxaan rabaa inaan dilo adigana aan ku musaafuriyo oo aan ku diro dalalkaaga ama meel kale aan ku diro adigana dambi kuma yeelanaysid anigana dambi kuma yeelanayn gabadheedina oo aarguday saas ayadii iyo gabadhii Aasiyaanka ay ku heshiiyeen waxaan dhacday in ninkii 2019 bishii 11aad in ninkii la soo xareeyay guriga la keenay ayadina marka guriga ku sii jirtay qol gadaalay ku jirtay qolka fadhiga markay imaadeen ayadii gadaalka soo martay waxay ku qabatay cudbi ama wax suuf daawo leh sankaga qabatay saasoo ku soo waxay daawooyin far badan ay siisay waxyaabo far badan jirkiisa nabar far badan ku dhuftay ilaa nafta ay kaga baxdo way kaga soo tagtay waliba gacmaheedu way ka ilaalisay waxyaabo galoofis wax ay gashatay gabadhi kalena gacmaheeda kama uusan soo bixin galoofis ay gashatay isla markii waxa dhacday gabadhiina inay meesha ka soo baxsatay ninkiina wuu dhintay gabadhiina way baxsatay ayadiina way baxsatay ayadii because qofna kama shakiinayso because ayadii ninkan waxba kama dhaxayaanba gabadhan dalalka Aasiya ka soo jeed waliba sida la sheegay waxay ka soo jeeday dalka Thailand gabadhii isla markiiba way soo safartay maalintaas tikidkeeda iyo diyaar u ahaa way safartay gabadha sida la sheegay waxay u safartay Thailand ayadiina waxay joogtay magaaladeedii gabadh way iska baxday ayadiina maxay tood gurigeeda iska aaday ninka lama tabin ninka 4 maalin kadib geeridiisii dadka jaarku waxay dareemeen ur aad fara badan oo qaybtan ku soo baxso isla markii booliska laba boolis ku jibiyay waxa la arkay ninkan inuu meed yahay ninkii meedkii la bixiyay baaritaan lagu sameeyay gabadh guriga lahayd waxa la ogaaday in gabadh inay ka baxdo dalka waliba Thailand ay aaday ayadii bas
soo galayso farsoomaa ayadii marka waxay bilowday in ilmaheeda la sheer garayso because ilmahaaga waa laazim waad la sheer garanaysaa wixii farxad oo aad sameynaysid waxay tiri wiilasheeda wiilka ugu yaraa waxay ku tiri gabadhaydii ninkii dil waan u arguday waan dilay weliba wuu dhintay gabar heblaaya ii dishay gabadhiina Thailand aade aniga ayaan qofka dilow gacanteeda ku dil laakiin gabadhu ii soo shirqooshay wiilkeedii jaa wuxuu bilaabay inuu report ka gudbiyo oo yiraahdo ninkii waqti hebel la dilay hooyaday baa dishay waa caynka weliba wuxuu ka duubay in hooyada cadeymo ay ku qoranayso in ayada dishay isla markiiba booliska markuu ka report gareeyay boolisku xiblaan baaritaano hooyadii loo imaado waa la xiray waxaa la yiri maxay tahay sababta uu dishay waxay tiri gabadhaydoo dilay gabadhaydii markay cadaalad weyse daraadeed aniga cadaalad u sameeyay because ma jeceliye tiri gabadhayda nin dilay inuu dunida sii neef qaato saas daraadeedan u dilay cadaalada gabadhayda idinka weysana aniga usoo dhiciyay saasay maxay ku dooday maxkamada la saaray oo waxaa la saaray bishii hadda la soo dhaafay April maxkamada la saaray ayadan waxaa lagu xukumay in xabsi daan ka 78 jir ayadaaba dhimanayso sama xabsi daan lagu xukumay marka meesha waxay tahay wax kaaga cad waxay tahay inay rabtay in uu argudo gabadheeda markastana ilmahaaga markii qalad laga galo ama wanaag waa wanaag laakiin markii qalad laga galo oo ilmahaaga la dilo waalidiinta qaar way iska samraan waalidiinta qaarna waxay rabaan ilmahoodii qofka dhibaatada u geysto inay u argudaan because waalid markii qofku waalid uu yahay dareemi kara xanuunka awlaad ay leedahay waxay ku fikirtay inay ilmaheeda u argudo waliba waxay tiri xabsiga la xiraayo kama xumi xataa hadaa ay dishiin tiri ku faraxsanaa because maanta ninkii gabadheeda dilay oo dulmiyay oo ayada ilmaheedii yaraa isla dilay haddii aadan dilay ay habi soo marka kama xumi tiri ama xabsi geliya ama idira waa isku kaymid gabadhii Thailand ka soo jeedana maba la soo qabo because islaantan naagtan ayadaaba khiratayda saasay marka ku gashay xabsi daayin 78 jirta saasay marka qisadeen ku dhantahay insha Allah waa masintii dhamaantiinba please channelka la share gareey la subscribe gareey la like gareey because like tiina iyo share tiina subscribe kiina dhiirgelinay tahay insha Allah commentigeena ducada iyo mahadcelinta soo jirtana ku mahsantii dhamaantiinba waa wada jecelahay insha Allah qisooyin fara badan soo socdo wadamo fara badan tagi doonaa duu Ilaahay waxyaabo fara badan soo socdo qofkii su'aal qaba insha Allah ayuu soo reebo Instagram ama Facebook dhamaantiinba waa wada jecelahay dhamaantiinba peace and love